ururka haweenka qarankeena ee gobolka saaxil ayaa maanta yeeshay shirkoodii 2 sanadood la ahaa kaasoo 2 sanadoodba lagu doorto gudoomiye iyo ku-xigeen. shirkan ayaa ka dhacay xarunta jaamacadda badda ee magaalada Berbera waxaana ka soo xaadiray madasha shirka in ka badan 40 xubnood waxaana goobjoog ka ahaa madasha shirku ka dhacayay gudoomiyaha gobolka saaxil duqa degmada Berbera la taliyaha madaxweynaha arrimaha haweenka Amal Ahmed Xaaji Miisaan gudoomiyaha guud ee ururka qaranka ee Naaw أنيسان نور عقال أنتي أنا شركو بلابنين إن يركهر وحشركة بنانك وجب حي تطبيق طبعا حملات كواس وسلوجي هنانك وشركو سعدا دميه رأي كحجين كذا أورو كنا ويقبل كساحل إن أي شركة سخل ضن وضع إسلام رهان تنا أي كصادرين حبنا عن كتر نور كناو سيعوجب بحسنا عد كذا أي شيء شركة أي هالكسي كسي سعودي أنا هكذا جلين تطبيق طبعا كحملات السلوجي هنانك الشركة وحنا قدومية الله دورتي قدومية هراء لقوم مجعبس هذا جماعية كحجين كذي maanta waxaan halkan u joognaa waa ururkii oo la dooranayo gudoomiye ku-xigeenkii gobolka saaxil iyo hablo kale oo iyaga u taagan inay noqdaan gudoomiyaha ay soo taageen iyaguna noqoto gudoomiyaha gobolka saaxil oo murashaxada iyo gudoomiyihii hore iyo ku-xigeenkiisa iyaguna diyaara waxaan ilaahay mahadiyaa inaan maanta isugu nimaadno iyadoo ay dhacayso doorashada ururka qaranka ee Naaw gobolka saaxil kadib markii ay ka dhamaatay oo ay hogaamiyayaashii hore ee ururku hogaamin jiray maanta ay u taagan yihiin hogaamiyayaal kale oo is sharaxaya ilaahay yaa mahad isugu keenay haddii aan waxoogaa warbixinaa aan ka bixiyo ururka qaranka ee Naaw aad iyo aad u bixisay laakiin muddadii aan hawshan ku gudan jirnay haddii aan warbixin ka bixiyo waxaan hawshan ay noo bilaabantay habeenkii sabtida axad soo gelaysay habeennimadii sabtiyaadeed waxaan isugu yeedhay gudoomiye ama warbixin ka siinay mas-uuliyiinta gobolka oo dhan waxaan isugu yeedhay ururkii qaranka ee Naaw waxaan ku balaaminay hoteelka alxayaad fadhigii ugu horreeyey dhammaantood 2 kooxood oo isdarayaala ay iska soo horjeeda oo doorashada ku tartamaya markii aan u yeedhay ururka qaranka 2 kooxood waxay ahaayeen habeenkaas waxaa loo yimid 8 waxa ay noo sheegeen in ay yihiin 3 iyo 4 iyo 30 ku kala saarno si uu qaraarka qaldan sii qaato oo dadaalkiisu sii laalaamo oo qofkii shaqeeyay inuu ku naasay shaqada qabtay qofkii aan shaqeeyay halkii كايبرا وسمعها دي كسيرة والله إنه ورشة فريق حرارة وكلا صاروا حوالي كذا جوه الساحل الماء والمفر الماء نقطة مشاركين تقول كقرن كجوه الساحل أنه سوى بالبياس فيولا ولا بدونيها يبدونيها كشجينك وكمان تشاهدوا كقرن كأنه أيام عصر إليها كعندها الجنينة الله ينترك اليوم وفوقها الجنس بدومي حنا نرد في اليوم حليلها حنا نقولوا تعال سيدي يطلب واحد سياسات شارع عسكر صلح حبلنا وكعبسين يسوي الفيديو ويجي عدك بيس يسالو سالو عدك في مارسو ururka qaranka ee gobolka saaxil gudoomiyaha ururka qaranka ee gobolka saaxil waa saalo jaamac aadan anigu waxaa ay gudoomiyaha ururka qaranka ee Naaw inay codeeyay iyo midii codeeyay labadaba waxaan u hay gudoomiye sibaan ugu wada mas'uul uga wadahay taaniyada hala geliyo transparent baan ku shaqeynaynaa insha Allah idan kala hadii markii labaad sanadkii dambe aan ku guuleystay waxaan leeyahay soo dhawaada gudoomiyihii nibaad iyo ku-xigeenkii gacmo furan gobolkayaga iyo waddankayaga sidii awal baan uga shaqeynay baan uga shaqeynaa waxaan leeyahay haweenaha haweenka qowmana qiimo labadii ku radiya way qadeeyeen waxaa la doonayaa inaad sidii iyo sida fiicanba axirkii loo gudataan waxaa kaloo la doonayaa gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka marka la doorto
وحوليها وترسبان كعودي يسكون ليلا يوميا للتهاي وحلتوا أولوكي بهوين تناو دورك إلى السوشيدان وهذا كده ولا رئيس كسانته لك أنكو فرحسنين يوميا للموتو وأسوي وسائل الدنيا markii uu shirkan soo idmaaday guddigii la soo diray ee la soo igmaday ee la yiri waxa afaafka hore ee xarunta shirku ka soconayay xarunta shirka jaamacadda badda ay 17 xubnood ee shirka Soomaaliya ay ku doortay gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen taasoo gudoomiye ay u doortay Xabiiba Maxamuud Cabsiye soo baxayagan iyo shirka aanu ka soo baxnay waxa sababay markaanu aragnay cadaalad darro jirtay oo aragnay guddigii la soo diray ee la soo igmaday ee la yiri dhaxahaada oo dhaxahaan weyday iyagoo khiyaamo la yimi oo yiri halkaas madaxdii gobolkiinu joogto ayaanu wixii aana wahayna ka saaraynaa wixii aan ku daynaynaa waxa dhacday dadkii iska soo buuxiyay markii ay yiraahdeen codkii ay soo diyaar gareeyeen dumarkii guddida ahaa la soo dirtay iyo gudoomiyihii dhamaaye general director-kii nawaha وانتو هكا ايسا سو تاغي وخيامة سمية يويلي هالكي عانو سوغيني تاسنا وماها صدحي صدنكي دمرها حاضري اي حاضري ويدي ملاحدي قبل كنا كو صافر سي دمركيو شيرين iyo qodax la oo soo hagaajiyay baan halka idin keenaya su'aal baan weydiiyay dabeetana gabadha gabadha haweenka u qaabilsan la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha haweenka waxaan ku dhaamaalay arrinkii aynu ku heshiinay iyadoo madaxda oo dhami maqlaysa meeshana idinku baa joogteen kelmadan weydiiyay waxay ahayd amaalay arrinkii horta ahaa marka iyadoo dadkii gobolkiinuna joogaan arrinkii aanu nidhaahna taasina ma noo baa tahay heblaay 3 halka loo saaray iyadoo dad dheeraad lagu soo darsaday ee arrinkiina halka la dhigo ayaanu codkii bilaabaynaa ee halka la idinku kala hagaajiyo qaflad bay noqotay arrin la soo go'aansaday bay ahayd arrin madaxda gobolkana lagu soo yiri bay ahayd dumarkii oo soo hagaajinay baanu meesh ku inaa arrinaan dhex laga ahayn buuha waa naga ka soo baxnay waa naga ka soo dareernay gudoomiyaha iyagana imika halka ku magacaabayna idinku marka hore noo ma ka tirsanayeen shirkana waa ka soo baxnay sabab marka waxaan uga soo baxnay iyadoo aanu dhex arki weyday oo aanu ahayn laba wada hadashininba dumarkii aanu lahayn hal la wada hadashiyo 3 inta halka loo saaro iyadoo dheeri la wato la yiraahdo taasina Soomaaliya waxay taasina la isla saldhigo dibad codkii la galo tiiba dhici weyday oo codkii baa la galayaa baa la yiri taasana naga soo saartay inaanay dhex ahayn maayarkuna una socdaa idinku markaa ma waxa ka baqdeen inaan cod idinku filan weydaan garab ma waan haysanay 7 waxaan haysanay 8 iyo 10 cod baan haysanaa anagu cod waxaan dheeraad bay soo qaxaysteen 20 dumar ah ayay soo qaxaysteen oo 15 aan ku jirinaw kaadharkii bay u soo samaysteen waxaan ku niri dumarkiina horta seeda 3 baan anagu ka koobnay halkii la doonayay in la garnaqo oo arrinkii 3 oo halka taagan codkii la qaado ayay qaadi waayeen oo doonayeen foobiyan cod lagu helo taasoo laga soo waxa leeyahay dumar aan noo ku jirin heshiiskii aan ku heshiinay inay ka saaraan heshiiskii dhamay aan ku saarnay inay ogaayeen bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ahaa gudoomiyaha musharaxa imka u taagan waxa baan ka yaabo taa naga daran waxay dumarku soo khaldeen maayirkii markay inantaas u sheegtay gabadhii la hadashay tiri sidaas jirta inuu yiraahdo intuu gacanta saa ugu fiiqay heblaayo kuma jirtid nooga ka baxnaan adiga waa laga saaray halku waxna weydiin la maxaasiya maxaa jira arinta waan ka xunahay imika 16 dumar ka soo baxdeen shirka ayaan 17 baa kaga soo baxay golaha imisa fadhiyo wax dooranayay 15 baa markaa naga fadhiyay ayaan kaga nimi 15 baan nahay marka maxaa ayna ka codsanaysan gudoomiyaha guud ee ururka now gudoomiyaha waan qaadacnayba kalaam sadee hadalkan suga waxaan marwada guud dalka ka codsanaynaa inaan halka wax cadaalad ka dhicin una dhaweyn nawna anagu aan ku dhaqno ahay gudoomiyaha usbanow ku-xigeenkana ay tahay khadra awil anigoo ah Xabiiba Maxamuud Cabsiye gudoomiyaha cusub ee now iyaduna tahay gudoomiyaha ku-xigeenka khadra awil makaan marka 17 meesh taagan baad adiga gacanta ku taagay marka uu soo gudoomiyaha ku noqonaysa waa kooramku weeyaan waa inta noo kooramkii baan